wakaaladda horumarinta biyaha ee maamulka magaalada Goday oo ka duuleysa hirgelinta qorshayaasha xukuumadda u qaadatay dhinaca biyaha sidii bulshada looga baahi tiri lahaa ayaa waxay dadaal ballaadhan ugu jirtaa sidii magaalada Goday ay ugu sameyn lahayd wakaaladdu biyagelin isla markaasina ay dayactir ugu sameyn lahayd water point-yada iyo goobaha kale ee biyaha sida ay sheegeen qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Goday. xukuumaddu boqolkiiba boqol way mahadsan tahay inta Ilaahay lagu mahadiyo xisbiga iyo dawladdu si fiican bay noogu adeegeen dardargelin iyo waxyaalo aan arki jirin baa ka socda magaalada xaafadahaana lagu soo booqanayo xafiis madaxeedadii iyo shaqaalihii tiknikeeshka xaafadaha lagu soo booqanayaan leeyihiin xageed ka cabteen seed biyo u heleysaan anaga guriyahanaga iska joogno hadda ka hor kaba sameeyay biyo maanta xaafadahana lagu soo booqanayo leeyahay biyaha hesheen intay leeyihiin ma yar yihiin ma badan yihiin marka xukuumadda mahad celin ballaaran baan soo jeedinaynaa suuqa xoolaha ee Goday dhibaatada ka jirtay maanta intii ka horeysay oonka dartii sida eega sida hadhaawo oo kale sida baarguun oo kale sida gabicas oo kale xoolihii oon dartood nooga kala noqon hayay eegana maanta waxa socdo biyihii oo kuwan oo socdo qulqulahaya loodiyo ka cabaysa arigiyo cabahaya iyo geeliyo cabahaya ayaan aad boqolka ugu mahadnaqaynaa ayadoo nolosha siyaadiyana aad baan ugu baahannahay marayaha wakaaladda horumarinta biyaha ee maamulka magaalada Goday mudane Axmed Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in wakaaladda horumarinta biyaha ee maamulka magaalada Goday ay ku dadaalayso sidii bulshada ku nool magaalada Goday ay uga qabtir lahayd biyaha. wakaaladda horumarinta biyaha maamulka magaalada Goday iyadoo ka duuleysa hirgelinta qorshaha dhinaca biyaha ayaa waxa ay awood saartay in bulshada ku nool maamulka magaalada Goday ay biyo nadiif ah gaarsiiso taasoo biyo nadiif ah aan gaarsiinay qaybo fara badan biyagelin aan sameynay biyagelintaasoo xaafado badan biyagelin hadda aan ka wadno waxyaalo kale oo hadda aan sameynay xafiiska wakaaladdu ay sameeyeen waxa kamid ah hirgelinta saylada xoolaha oo biyaheedu hadda ka hor aan shaqeyn jirin oo biyagelin aan sameynay wadamo xoolaha ay ku cabiyeen soo ay xukuumaddu ay qaadatay in biyaha 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ay qaadatay qorshahaas anagoo ka duulayna haddana anagoo aan dadaal wakaaladahan u sameynay inaan hirgelino biyo xaafadaha sida aan biyagelin u sameynay markaan eegno biyahaas nadiifsan waxaan dhigi karnaa qaybo waan ka qabtirnay biyo kuwa kalena inaan sii gaarsiino insha Allah biyagelinta aan sii wadno marba mar ka dambaysa ayaan kulli ku rajaynaa.